الظالمين إلهي ظالمين تواطميا وواكطميا توحيدك ورقبته إلهي كعصبا warjoojiya heesaha iyo cajalooyinka aad maqrib walba wadataan oo aad kala amaahsanaysaan ood kala qaadanaysaan ood soo ijaaranaysaan joojiya oo ilaahay ka cabsada gabar ayaa jiri jirtay aad iyo aad heesaha u jeclaan jirtay mar walba heesaha ayay dhegaysan jirtay mar walba heesaha ayay samaysataa waxay saarataa cajalooyinka heesaha fanaan ma jira ilaa way xifdisay magaciisa iyo meesha uu ka yimid iyo goorta uu curintaa iyo waxyaabaha sameeyey hees ma jirta ilaa laxankeeday taqaanaa waxyaabaha iyo sida looga laxmiyo ayay taqaanaa dhammaan aad iyo aad ayay u jeclaan jirtay kushiinka markay ku jirta ama madbaqa ayay heesaha qaadaa ama daarataa guriga markay xaaqaysay samaysa waa in badan oo gabdhaheena ka mida sida ay maanta yeelaan akhiiran iyo gabagabadii ayaa gabadhii sakaraadka ku soo xaadiray waxaa la gaaray waqtigii ajasha camal fiican inay samaysataa fiicneed ma samaysanin rabbigeed inay wax u hormarsataa fiicneed uma hormarsanin rabbi ayay nacdo fanaaniintay jeclaatay qur'aankii kalaamka allay nacday heesahay jeclaatay fiiriya sida alla ku abaalmariyey subxaana wa tacaala gabagabadii ayaa lagu abaalmariyey in sakaraadkii soo xaadiro dadkeedii ayaa u soo aruuro meeshaa laysugu yimid culimadii ayaa timido waa ag fadhiisteen kelimada tawxiidkaa loo laqimo waxaa la yidhi laa ilaaha ila allah dheh ayaduna waa kari weysay laa ilaaha ila allah qofkii ku camalfali jiray oo raaci jiray oo yaqaana macaanideeda iyo shuruuda ay wadataa ku celceliya marka uu sakaraad yahay amaa axad heese ka caado dhigtay filime iyo aflaan ka caado dhigtay riwaayado iyo kusheertooyinka caado dhigtay iyo inuu masrax mar walba gala uu daabado laa ilaaha ila allah dee u dhaha waa waxaan suuragal ahayn gabadhii waa sakaraad oo nafteedaa la soo aruuriyey jilbaha laysugu keeno waa laga soo qaaday ma kari karta inay rikoor dambe heese ku dhegaysato ma awoodi karta inay mar dambe baxda ay siiriyaha ka soo qaadato cajalooyin heesa ah maanta wixii ka dambaysa adduunkay ka rawaxaysaa aakhiray u socotaa maanta wixii ka dambeeya rabbigeed hortiisaa la geynaa